soo dhawaada asxaabta sharafta lahay waxaynu maanta muuqaalkan ku soo qaadan doonaa liiska dumarka adduunka ugu dhowaan uguna caatada badan haddaba intaynaan bilaabin muuqaalka subscribe saar channelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe soo galina Valeria Lavatin kumay dhalan Valeria caatada sidan ah balse waxay ahayd gabadh caadi ah oo qurux badan waxaana sidan ka dhigay oo ku dhacay xanuunka cunto xumada markay daadeedu ahayd 20 sano waxaana isku bedeshay gabadhii dharka xaysiin jirtay midda sidan u caatada ah Valeria waa gabadh asal ahaan u dhalatay wadanka Ruushka iminkana waxay ku nooshahay wadanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Monaco gabadhan 39 jirka ahi miisaankeedu waa 26 kilogram oo kaliya halku dhererkeedu ka yahay 173 cm waxaana ay la dhibaatatay Valeria xanuunka cunto xumada kadib markii ay raacday nidaam cunto oo aan wacnayn iyadoo markii dambe jirkeedu isku bedelay lafo kaliya waxay Valeria qabataa oo ka shaqeysaa imika inay dadka ka waaniso cunto xumada waxaana sheegtay iyadoo ka hadlaysa wixii ku dhacay waxaana ahaa gabadh iska jecel miisaan dhimista waxaana rabitaankayga isku bedelay xanuun caadiya gabadhan markii hore waxay islahayd cayilka iska rid balse waxay soo baxday qaabkan Lizzie Velasquez waxay u baahan tahay gabadhan 24 jirka ahi inay 24 saacadood 20 kamid ah wax cunto si ay dunida ugu sii noolaato waxaanay maalintii wax cuntaa 60 mar miisaanka Lizzie waxa uu ka hooseeyaa 27 kilogram waxaanay dhakhaatiirtii baaray sheegeen inay gabadhan dhalatay iyadoo jirkeedu bilaa dufan yahay waana ta keentay in loo qoro cunto badan oo dufan leh si ay u sii noolaato waxaanu ahaa miisaankeedu mid aad u yar markay dhalatay waxaanay waalidkeed sheegeen in maryaha loo gelin jiray ay dhib ku ahaayeen iyaga waayo waxay ahayn kuwa markasta gaar loo sameeyo Emma Davey waa gabar u dhalatay wadanka Ingiriiska muddo sanad ahna cunto afkeeda may gelin waxaana gabadhan 24 jirka ahi dagaal la gashay cunto xumo waaliya oo ku dhacay markay 8 sano jirtay waxaanay noqotay dariiqada kaliya ay ku noolaan kartaa in tuumba caafimaad lagu siiyo cuntada waana tuumba qofka afka laga galiyo cuntadana toos caloosha u geeya waxay Emma qisadeedu bilaamatay markay maqashay macluumadeeda jaaska oo saaxiibteed ku leh Emma weligeed ma noqonayso mid dheesha ku fiican waxaanay ku sababaysay hadalkeedaas inay aad u buuran tahay maalintaas kadib waxay go'aansatay Emma inay miisaanka iska rido waxaanay dhammaan joojisay cuntooyinkii jirka nafaqada u lahaa waxaanay bilowday jimicsi kooban iyadoo la dhibaatootay dhibaatooyin shakhsiyadeed waxaanay isku dayday inay isdisho 9 jeer dhammaadkii 2014 waxay ugu dambeyn Emma cuntay cunadii kadib markii qoyskeedu tabarucaad lacag u ururiyeen si ay ugu daweeyaan Muluruk Embawu gabadhan madow Etoobiyaanka ahi 9 sanadood oo isku xigtay wax may cuneen waxna may cabin dhakhaatiirtii baadhayeen waxay sheegeen inaanay haba yaraatay wax raado cunaahi ku hadhin caloosheeda la moodana inaanay weligeed waxba cuneen waxna cabin waxaanay gabadhan u sheegtay dhakhaatiirta inay cuntay qado markay ahayd galaaska shanaad ee dugsiga dhexe sidaa daraadeed aanu jirkeeda u baahnayn wax cunno ah markii dhakhaatiirtii dib u baadheenna waxay si guud u sheegeen in jirka insaanku u baahan yahay nafaqo si uu sii noolaado sidaa daraadeed gabadhan jirkeedu uu leeyahay dareere nafaqo oo dabiiciya sidaa awgeedna ay noolaan karto bilaa cunto halka ay sheegeen in jirkeedu iska dhuuban yahay oonay dhubnaantaasi ahayn nafaqo darro iyo wax la xidhiidha waxaanay la yaabeen khubradii baadhayay gabadhan 18 jirka ah aan wax cunaa cunin 9 sanadood markay baadheenna waxay soo saareen in dareeraha nafaqo ee ku jira gabadhani uu caadi yahay Nicholas Nikos waa hooyo jirtay 25 sano waxaanay haysataa 2 caruura iyaduna wax cunto ah may cuneen wax cabitaanna may cabin 7 sanadood isku xigta waxaana curyaamay dareemayaasha caloosheeda waxaanay dhibaatada ku bilaamatay markii da'deedu ahay 18 sano markaasay caloosheedu shaqada joojisay iyadoo sheegtay inay qabow daran ka dareemayso caloosha shaybaadho dhakhtar markay martay waxa lagu ogaaday in nidaamka dheefshiidka caloosheedu aanu awood u lahayn inuu qabto cuntada iyo cabitaanka waxaana laga sii qaaday shaybaadho kale waxaanay dhakhaatiirtu ku cadeeyeen inuu ku dhacay xanuunka gastro process taasina la micno tahay inaanay caloosheedu burburin karin cuntada ay cunto taa bedelkeedana ay noqonayso inay afku ka soo celisay waxay cunto waxaanay gabadhani ku nooshahay wax laga siiyaa xididada dhiigga qaada markay cuntada falaanba ku qaadato waxay si wacan u heshaa tamartu jirku u baahdo markii uurka lahayd Nicholas waxa uu jirkeedu la dhibaatooday xanuunkan waxaanay noqotay mid weyd oo caata ah halkay timaheediina ka daateen